kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu ahaa mid si rasmi ah loogu shaacinayay in maamulka gobolka uu hirgeliyey buugga caafimaadka ee loogu talagalay inay isticmaalaan dadka ka dhoofaya iyo kuwa ka soo degaya garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho. xubnaha ka qaybgelayay kulankan ayaa waxay isugu jireen madax ka tirsan maamulka gobolka banaadir, culimo, ganacsato iyo xubno matalayay midowda wakiilada duulimaadka iyo dalxiiska ee sata, gaar ahaan shirkadihii dhowaan ku guulaystay in xujayda Soomaaliyeed ay geeyaan waddanka boqortooyada Sacuudi Arabiya si ay u soo gutaan waajibaadka xajka. cali axmed faarax oo ku hadlayay magaca wakiilada duulimaadyada ee sata ayaa maamulka gobolka banaadir uga mahadceliyey hirgelinta buuggan, waxaana uu ku tilmaamay in ahmiyad weyn ay u leedahay hirgelinta buuggaasi bulshada Soomaaliyeed. annaga marka waxaan nahay dadkii oo aad iyo aadka ugu baahnaa, waad ogtihiin dhibka ka jira ummadda Soomaaliyeed ku haysta xagga safarada. cabashadaas aad ayay nagu soo noqnoqotay, waana soo dhaweynaynaa qof Soomaali oo dhoofay oo tigid qaaliya ku baxay in loo soo celiyo buuggii caafimaadka ee haddana isagoo lacagtaas laga qaaday laga soo celiyo wadamo badan. sidaas darteed maantay gobolka banaadir ayaa soo diyaariyey, waa u mahad celinaynaa. qaar ka mid a culimada ugu waaweyn dalka ee goobta ka hadlay ayaa tallaabadan ku tilmaamay inay tahay mid muujinaysa dib u soo curashada nidaamka dowladnimo ee dalka, maadaama gobolka banaadir uu ku guulaystay hirgelinta buuggan, sida uu warbaahinta u sheegay Sheekh Nuur Baaruud Gurxan. buugga caafimaadka wuxuu ka mid yahay astaamaha qaranku ka mid yahay, soo celintiisuna waxay ka mid tahay in dowladnimadii ay horey u dhaqaaqday. marka waa arrin weyn oo la hambaliyeeyo oo lagu farxo weeyaan. xaajina gaarkuma aha sida loo sheegay. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir mudane Ibraahim Cumar Mahad Alle Ibraahim Dheere waxa uu dhankiisa sheegay in hirgelinta buuggan ay timid baahi weyn oo ay u qabeen bulshada Soomaaliyeed, waxaana uu ka warramay qiimaha buugga iyo goobaha ugu muhiimsan ee dadku ay ka heli karaan. baahida loo qabo in la qaato buug caafimaad waxay ka timiday shacabka Soomaaliyeed. gobolka banaadir wuxuu ku dhiirigeliyey inuu u fududeeyo sameynta buuggaas. qiimaha waa $10. buuggaas waxaa ka qaadan kartaa tigidhada meesha laga jarayo oo travel agency-ga amba airport-ka. qof aan wadan buuggaasi airport-ka, qofka raba inuu ka baxo airport-ka waxaa shardi ah inuu soo qaato buugga caafimaad. meelaha oo ka qaadanaya waxaa ka mid ah airport-ka oo ka baxayo iyo meesha oo tigidhka oo ka goosanayo oo travel agency-ga ah. maanta waxaan joogay xaflad oo IBS Bank oo ay bixinayeen Mastercard. shalay waxaan joogay diyaaradii Qatar Airways oo bilowday duulimaad ka bilowda Soomaaliya. insha Allah berrina waxaan isku iimaaneynaa annagoo samaysanay train ka soo baxa Kismaayo oo yimaado loo yacdeen. Cumar Maxamed Soomane, Universal TV, Muqdisho.